wacan oo wanaagsan saaxiibayaal halkani warbaahinta xulka wararka kusoo dhawaada warka qodobadaan idin haynana waxaa ka mid noqonaya Kenya oo mar kale u gaftay dowladnimada Soomaaliya dagaal xoogan oo ka qarxay degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose ra'iisul wasaare khayre oo dib ugu gurtay heshiiskii dowladda iyo kooxda ahlus sunna wal jamaa xog cajiib ah Cabdirashiid Janan oo Muqdisho ku sugan iyo qorshaha ay leedahay dowladda federaalka Soomaaliya dowladda federaalka Soomaaliya oo bahdil la yaab leh ku sameysay maamulka Somaliland mowqifka cusub ee dowladda ee ku aadan maamulka Galmudug ayaan idin haynaa qodobadaasi ayaa daawan doontaan taariikhdu waxa ay ku beegan tahay 27 bishii 6 Juun 2019 saaxiibayaal u diyaar garooba daawashada qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan channelkan haddii aad ku cusubtiin saaxiibayaal subscribe dhaha oo calaamada kambareelka furta si aad uga mid noqotaan asxaabta ugu horeeya ee hela wararkeena xasaasiga ah ee aan channelkan soo gelino waxaan aynu ku bilownay Kenya ayaa waxay mar kale u gaftay Soomaaliya dowladda Kenya oo dood dhinacyo badan ay haatan ay kala dhaxayso Soomaaliya ayaa mar kale u gaftay dowladda federaalka Soomaaliya xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Kenya ayaa dafiray dowladda Soomaaliya waxaana sheegay in Soomaaliya aysan lahayn dowlad rasmi ah sidoo kale waxa uu Soomaaliya ku tilmaamay dal ضعيف oo aanan awood lahayn sida uu hadalkiisa u dhigay xildhibaanka oo ka hadlayay muranka badda ayaa waxa uu xusay in Soomaaliya ay sheeganayso biyaha Kenya taasi oo ku timaaday gardarro waxa uu kale dowladda Kenya kula taliyay inay isticmaasho awood military isla markaana ay ka cashto badda iyo biyaheeda sida dalkuusi u dhigay wayaan Soomaaliya xildhibaanka ayaa sidoo kale dowladdiisa ka codsaday inay ciidamada qaybta ka ah howlgalka AMISOM ay kala soo baxdo gudaha Soomaaliya dibna gudaha dalka Kenya lagu soo celiyo Kenya ayaa marar badan qaaday tilaabooyin kana ah dowladda federaalka Soomaaliya tan iyo markii uu soo shaabaxay muran badeedka u dhaxeeya dalalka Kenya iyo Soomaaliya dhageysiga dacwadda u dhaxaysa Soomaaliya Kenya ayaa maxkamadda ICJ dib uga bilaaban doonta bisha September ee sanadkan 2019 hadalkani ka soo yeeray xildhibaankani ka tirsan dowladda Kenya ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli muran xoogan oo u dhaxeeyo dowladaha Kenya iyo Soomaaliya waxaana Soomaaliya laga haystaa ama lagu doodayaa biyaheeda iyo badeeda halka dowladda Kenya ay doonayso inay si sharci darro ah ku qaadato biyaha ay leedahay dowladda Soomaaliya arintan ayaan dhici doonin oo dowladda federaalka Soomaaliya waxay xusul doob ugu jirtaa si uu difaaci lahayd bad iyo bari intaba wararkii ugu dambeeyay shirka dhacay magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya shirar gooni ah oo ka dhacay magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud kulamadan ayaa waxaa garwadeen ka ah ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo xalay ku hoyday gudaha magaalada Cadaado sidoo kale waxa uu kulamo la qaatay madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf iyo xildhibaan ka tirsan labada gole ee ka soo jeeda maamulkaasi shirarkan ayaa intooda badan waxaa diiradda lagu saaray xaaladda siyaasadeed ee Galmudug gaar ahaan sida loo wajahayo doorashada maamulkaasi wararka qaar ayaa sheegaya in wax natiijooyin aanan laga gaarin balse lagu ballansan yahay kulamo kale oo maanta ka dhaca magaalada Cadaado ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo saddexdii cisho la soo dhaafay ku sugan gobolka Galgaduud ayaa dadaal xoogan ku bixinaya xalinta xiisadda ka taagan gobolka Galgaduud Khayre ayaa hore ugu dhawaaqay in doorashada lagu qabanayo Dhuusamareeb halka taasna uu ka soo horjeestay madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf afarta bisha soo socotay July ayaa la filayaa inay qabsoonto doorashada balse waxaa jira caqabado hor taagan qabsoomida doorashada xilli odayaasha dhaqanka beelaha qaar ay ku doodayaan in doorashada laga hormariyo dib u heshiisiin la kala dhex dhigo beelaha walaalaha ee dega gobolada Mudug iyo Galgaduud xildhibaanadan ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ee ku sugan magaalada Cadaado ayaa waxaa kamid ah xildhibaan Mahad Salaad Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid iyo xildhibaano kale oo ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya waxayna gebi ahaanba ka fikrad duwan yihiin ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre waxa uu doonayaa Khayre doorashada Galmudug in lagu qabto magaalada Dhuusamareeb halka Xaaf ee tiimkiisana ay doonayaanba inay ka dhacdo magaalada Cadaado waxaana Xaaf xiriirkii u jiray maamulka ahlus sunna wal jamaa oo ay midoobeen kol hore waxa uu sheegayba
in cadaado caasimada ku-meel gaarka ee maamulkaasi ay tahay wax walbana iyada lagu qaban doono. ahlu sunna wal jamaaca ayaa ayagana mar ay kulamo kala duwan la qaateen ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk Soomaaliya Xasan Cali Khayre waxa ay diideenba inay cadaado tagaan saamina halkaasi oo jirsaan oo caasimada la isugu yimaado wax walbana halkaasi lagu dhameeyo. dagaal xoogan ayaa waxa uu ka dhacay degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose. warar kala duwan ayaa ka soo baxaya dagaal goordhow ka qarxay degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose. dagaalkan oo ahaa mid xoogan ayaa waxa lagu soo waramayaa inay saakay aroortii hore uu ka bilowday gudaha magaaladaasi. sida ay xaqiijiyeen ila wareedyo lagu kalsoon yahay waxa ay noo sheegeen in laba maleeshiya beeled halkaasi dagaal xoogan uu ku dhex marayo. khasaare ayaa jira waxaana khasaaruhu isugu jira dhimasho iyo dhaawac ilaa iyo welina xog rasmi ah oo khasaarahaasi ku aadan lama hayo. wararka aynu helayno ayaa sheegaya in dagaalkan uu ka dhashay muran jidgooyo isku qabteen maleeshiyaadka hubeysan ee halkaasi wadaaga. xaaladda ayaa haatan ah mid kacsan waxaana weli qaybo ka mid ah magaaladaasi laga maqlayaa daryanka rasaas culus oo ay labada dhinac ridayaan. dagaalkan u dhexeeya maleeshiyaadkan ayaa marar badan kusoo laalaabtay deegaanka degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose. hadhawaana ka tirsan labada gol ee baarlamaanka dowladda federaalk Soomaaliya ayaa dhowr jeer ku baxay xiisadan maantana dib ayay usoo cusboonaatay. xildhibaanada waxay doonayeen inay dejiyaan xaaladani si cakirmaysa. ma jirto ilaa hadda wax warar ah oo ka soo baxaya maamulka gobolka kan degmada iyo maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ee ku aadan dejinta xiisadani dagaal ee ka sii daraysa. ma ahan markii ugu horeysay oo maleeshiya beeladkan halkaan ay isku dagaalaan waxaana horay halkan uga dhacay dagaal xoogan oo ay ku dhinteen dad aad u fara badan. khasaare ayaa jiray oo ahaa dhimasho iyo dhaawac waxaana dagaaladan ay kusoo laalaabteen degmadan Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose. xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk Soomaaliya ayaa dhowr jeer halkaasi waxay u tageen qaboojinta xiisadan marba mara ka dambeysana khasaaraha ayaa kordhaya. xog cajiib ah Cabdirashiid Janan oo Muqdisho ku sugan iyo qorshe ay leedahay dowladda federaalk Soomaaliya. wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Jubbaland Cabdirashiid Janan ayaa shalay soo gaaray magaalada Muqdisho sida ay ka helnay ila xog gaar ah oo lagu kalsoonaan karo. Cabdirashiid Janan oo kamid ah xubnaha aadka ugu dhow madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa la dejiyay xarunta hay'adda nabad sugidda iyo istirdoonka qaranka Soomaaliya ee Muqdisho. ila wareedada lagu kalsoon yahay ayaa waxa ay sheegayaanba in imaashaha Janan uu la xiriiro arrimaha doorashada Jubbaland oo dowladda federaalk Soomaaliya raadinayso albaab ay ka gasho xilli ay isku khilaafsan yihiin madaxweynaha maamulka Jubbaland iyo dowladda federaalk Soomaaliya. Axmed Madoobe ayaa horay u diiday in wafdi ka socda dowladda federaalk Soomaaliya kaalin ay ku yeeshaan doorashada dowlad goboleedka Jubbaland magaalada Kismaayana inay soo gaaraan ayuu ka soo horjeestay. imaashaha Janan ee Muqdisho ayaa loo arkaa tallaabo bilow u ah dagaalka siyaasadeed ee dowladda federaalk Soomaaliya ay ku doonayso inay ku qaado madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. inkastoo uu Janan yahay nin kamid ah ragga ugu dhow maamulka Jubbaland madaxweynihiisa haddana waxaan la ogeyn waxa uu kasoo bixi doona safarkiisan oo ku yimaaday gudaha magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya. dowladda federaalk Soomaaliya ayaa waxay dadaal xoogan ku bixinaysaa si ay doorashada dowlad goboleedka Jubbaland saameyn weyn ugu yeelan lahayd halka madaxda ugu sarreysa dowlad goboleedka Jubbaland oo ugu horeeyo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ay ka biyadiidan yihiin dowladda federaalk Soomaaliya inay soo farageliso doorashada dowlad goboleedka Jubbaland ka dhacaysa. ilaa haddana si rasmi ah looma oga waxa uu ku qatomo imaashaha Cabdirashiid Janan marka laga soo tago warar hoose oo inuu helayno oo ku aadan in dowladda federaalk Soomaaliya ay kala hadlayso hanaanka loo wajihi karo doorashada dowlad goboleedka Jubbaland walow ninkan uu yahay shakhsiyaadka ugu dhow ama garbaha uu ku duulo madaxweynaha maamulka Jubbaland. ilaa haddana waxaan la ogeyn inuu wakiil ka yahay madaxweynaha maamulka Jubbaland ama Cabdirashiid Janan uu wato qorshe asiga u gaar ah. hase yeeshee waxay kulamadaasi ka soo baxaa haddii Allah wada ogolaado waxaad kala socon doontaan oo isha aad ku haysaanba
warbaahinta xulka wararka oo wararkii ugu dambeeyay ayaan idin soo gudbinaynaa haddii Allah awoodo la ogolaado. guud ahaan warkii ka daawanayseen warbaahinta xulka wararka saaxiibayaal waa naga inta fadlan channelkan haddii aad saaxiibayaal ku cusubtiin subscribe dhaha oo kambalka furta si aad uga mid noqotaan asxaabta ugu horeeya ee soo gaaraan warar iyo warbixino xasaasi ah oo channelkan maalin walba aanu soo gelino. waad ku mahadsantiin saaxiibayaal daawashada wararkeena xasaasiga ah. nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu.